abwaan axmed maxamed maxamuud axmed saki siilaanyo loo yaqaano abwaankaasoo ka tirsan kooxda gobolka jilayaasha anfac isagoo raba barnaamijkan si gaar ahaaneed uga hadlaya waxyaabo badan oo dhaqankeena Soomaaliyeed uu ka soo horjeedo. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa abwaan barnaamijkaaga wuxuu dhaleecaynayaa ama uu ka soo horjeedaa adigoo tafaasiir naga siinaya. bismillaah rahmaan rahiim. wato wasax su'aashaasi barnaamijkaygu wuxuu ka hadlayaa ama maanta soo qaadanayaa mar haddaan hay abwaan magacaygu yahay axmed maxamed maxamuud kuna magac dheer abwaan saki siilaanyo. waxaan ka hadlayaa maanta barnaamijka uu soo daadeeyo ninka la yidhaahdo Cabdi God. anagoo kaga hadlaya barnaamijka magaciisa wuxuu bixiyey siraaca af Soomaaliga. marka istiraaca af Soomaaliga waxa weeye inuu raaco waxyaabihii hore Soomaaliga ahaa, laakiin inuu ka hadlo maaha hablayo waxaan iyo hablo Soomaaliyeed oo qaawan waxa uu soo daray. waayo sababtoo ah waxaad arkaysaa hadhow islaam weyn oo qof TV-ga daawanaya inta wuxuu soo dayay Cabdi God dadkii daawaha islaamiin meel daawadaanba soo inay ka yaacaan meel way ka yaacayaan islaamiin والله ما تمني كل ذا واحد سوداء استوى دعتها معي واسكت يا إسلامي في تجودي هو قف بطل حلو قصة ما كان واحد كان لي برنامج عبد الله أنا ما كان أول كسب شيء قوي كسر لا حكاية قال هم أطلع حكاية كيسة واحد كل شيء كواحد على كواحد يتاح طبعا فكر يسويتها النادي عفوا والنادي كان سنة قوي كسر قال هم عيرك عمو واحد أول كده تلميه واحد يشرع شرح ولا واحد هاي heesahana qaado. marka anigu waxaan barnaamijkayga u soo qaadanayaa Cabdi God, laakiin anigu ma yihiin nin dalacayn Cabdi God, laakiin waxaan nin u sheegay Cabdi God khaladka iyo waxyaabaha saxsan oo meesha ku leeyahay. sax anigoo su'aasheeda labaad u noqonaya waxaa jira Cabdi God inaan kaliga aanad ka hadlin oo mowduucii hore oo barnaamijkan ku saabsan yahay adiga ku dhaad ka hadlayso nin la dhaho fanaan jira sidaadoo kale oo la dhaho Safwan Tookiya isaga qudhiisu waa ka hadlay isaga qudhiisa maxaad ka oran lahayd miyaad u hambalyeyn lahayd miyaad isaga wixii ka khaldan u sheegi lahayd maxaad oran lahayd isaga laftigiisa. ninkan ku jira xuduudda fanka hargeysa ilaa Safwan Tookiya waa inaan aad u wanaagsan dhalinyaro ah in guustusna yahay sidoo kale jira iyo xisaaba. Safwan Tookiya waa saxsan in yar oo ku yar khaldan yahay weeyaan wuxuu Safwan Tookiya ku yar khaldan inuu soo daayasba maaha waayo sidiisba dadku wax gaarsiinaya sidiisi inuu wax soo daayo maaha. markaan waxaan leeyahay Safwan aad leedahay khaldan inaad soo dayso maaha dadkii iyo wixii Cabdi God, laakiin waxaad ku saxsan tahay intaad Cabdi God u sheegtay ama aad dhiirigelisay oo ku tiri Cabdi God saas dadku ma fiican. sida jirta Cabdi God barnaamijkan siraaca Soomaaliga markuu bilaabayay adigu waxa ahayd sanadkii 2004 bishiisii koobaad ayuu bilaabay siraaca Soomaaliga. wuxuu ka bilaabay TV-ga Somali Channel qaybtiisa London. siraaca Soomaaliga markii hore Cabdi God wuxuu kaga hadli jiray suugaantii hore iyo afkeenii hore ee Soomaaliyeed ee muxtaramka iyo wanaagga ila ka midnaa. ma sheegi kartaa sababta ku kaliftay Cabdi God waxa taagan maanta iyo inuu uu kaga hadlo waxa taagan maanta iyo arrimahan dambe ee dhaqanbiiska inuu kaga hadlo ma sheegi kartaa? su'aasha aad u fudud. Cabdi God iyo hore uu soo dejiyay siraaca Soomaaliga siraac ma uu ma qaaliya siraac af Soomaaliga waxa inuu raaco Soomaaliga ama waxyaabihii hore. marka hadduu sabab Soomaaliga iyo wixii si wata hadduu soo daayo siraaca Soomaaliga waa shay qaali. siraac af Soomaaliga tankiisu af Soomaaliga u waday u raacay wixii hasaaru ka saaray ayuu wuxuu u tagay ama u gudbay sheekooyin kala waaweyn wuxuu soo dayay habka Soomaaliga هذه Soomaaliya inuu waa soo dayo maaha waxa yahay wuxuu ay hadda istu toban ciibo ma leeyahay astur marka inuu ceebti astro ayaa fiican. bismillaahi raxmaani raxiim. inagoo barnaamijkeenu noo socday barnaamijkeenu kusii dhowdhow yahay qaybihii dhexe waxaan jeclaan lahaa inaynu dadka u soo bandhigno waxa Cabdi God aad ku dhaleecaynaysid ama uu barnaamijkan kaga hadlay abwaan saki ama axmed siilaanyo inaad soo daysid ayaan jeclahay. وعاني waxyaabo fara badan Safwan Tookiya laftigiisu waa soo daayay waxyaabaha ka hadlayay marka daawo waxa Cabdi God soo daayay.
عادي كان كيسين ده كويس كيسين حليا مني تذكر هي على كلام بسم الله الرحمن الرحيم horta aniga qudhaydu wallaahi aad iyo aad ayaan u dareemay waxaad ka hadlaysid markii hore anigu barnaamijka imuu sii dhaadhacsanayn laakiinse markaad iga sii dhaadhicisay aad i tustaan indhahayga wax ku arkay waan yaabo nin weyn oo dee cabdigood oo waayeela oo dadkii hore oo rog caddaa inuu dee kaga hadlo barnaamijka waxaa maaha uu kaga hadlo uu dadka bulshada Soomaaliyeed ama ummadan dhaqanka Soomaaliyeed dhaqanka suuban leh ee diinta islaamka iyo shariicada islaamka ku hoggaansan inuu dee waxa kaga hadlo maaha waa runtaa saad sheegtay ilaahay wuxuu yiri halka shay ceebaad istirto toban ceebood aad leedahay ayaa la asturayaa marka cabdigood inuu isaga laftigiisu degdego maaha uu dhaho subxaanaka yaa cadiin markaba intuu dhaho uu dee wixii indhaha bulshada uu dee usoo tuso waa inuu fikir badan justi badan uu kaga bixiyaa waa inuu ka kaaftoomi karaa waxaan dee ka noqon karaa waayo waa inuu dee maskaxdiisa la kaashan karaa laakiinse dee inuu wixii kusoo degdego waxaa la yidhi sideedaba waxaa nabi maxamed baa sallallahu calayhi wasallam sheegay shaydaan baa degdeg wax kule inuu cabdigood degdego anigu run ahaantii aad baan uga xumahay saxaafadana dee waxaa laga yaabaa inuu dee kaga dhacayo meel xun oo ay saxaafaddu u bedelayo inay saxaafaddu wax xun soo deysaan wax wanaagsan soo deyn marka insha allah barnaamijka wuu ka hadli doonaa qaybihiisa dambe maxaad kusoo gabagabayn lahayd axmedow inagu barnaamijkeena waxaan ku hadlaynaa haddaan marnahay abweyno ama nahay fanaaniin waxaan rabaa in heesaha cabdigood raalli baan ku helnay inaan heesaha anagu aan leenahay amaanu samayno amaanu qaadno inuu cabdigood ka hadlo taa kuma diidan waxaan ku diidanahay inuu soo dayo hablaha Soomaaliyeed ee arkaysid ee dhaqaaqaweyn inuu asturaaba ahayd saan ugu sheegay way lahayd qofka tuu aad asturo toban ceebood u leeyahay ilaahay asturaab marka anu waxaan leeyahay cabdigood heesaan qaado ama ku sameeyay oo ku kalsoonay saha heesa tirada ma aragtay ma maqashay tirada naftayda naftaada furo sidaa tatawuq galo heesa soo tooga khaldad sida marka la hadlo in cabdigood heesaha ka hadlo waa loo baahan laakiin de inuu waa Soomaalidii iyo wixii soo dayo maaha الريال يوصل دنيا ما كانت عبد وحيا واحد كسبه ما كان عبد الله وحنا كلها لو عبد الله منه متي أي صفوان ما سوتش أي صفوان واحد دنيا عند الرمتة أما بين عبد الله إنه واحد كهلا يو وديه واحد الزراعة في الصومال ما كنت شركة مفروشة الزراعة في الصومال وين واحد كهلا هي هراء يساهم يكبسوا يسيه هراء سوبر دقيق دولا بيعرفها لو أنا كان دش عبد الله لكن ما كان هلا ويوصل قد بيش كوين كبسوا ما كان لا عبد الله على عينه cabdigood waxaa ku leeyahay cabdigood waxaan weydiin oo dee wixii hore ka hadli jirtay ka hadlay hargeysa ayaga tusoo gaadhay iminka hadda ceegaamo way ku jirta marka dad walba dee qof walba waa dimuqraadilaaciya markuu haarko in dadku dee ay ka hadlaan ay dadku inka dan fanaaniinnahay ama abwaaninahay in dadku hadla wada jecel inkasuu saportookiiu ka hadlo aad baa u taageeraa waayo wuxuu ogaanayaa ama cabdigood ogaanayaa waxan waxay tahay markaan waxaan barnaamijkayga kusoo koobiyaa ma kusoo gabagabeynaya inuu cabdigood waxaan uu soo bandhigayo uu dinaga dayo insha allah barnaamijkii isagoo ka gabagabaa laakiin si hal mid baan ku darsan lahaa ninka cabdigood la dhaho anigu markii ugu horeysay waxaan ahaa dadweynaha taageeri jiray laakiin run ahaantii anigu waa ka niyad jabay waayo markii hore jiilba jiilku ka horeeyo uu ka jaan wacan yahay ayay Soomaalidu ku maahdaan in gu ka weynna ka garaad badan haddaad tahay adigoo abwaano waxyaabo badan oo cabdigood kaga dayan lahayd ayuu markii hore ka hadli jiray laakiin mawduuciisa uu bedelay sida wuxuu soo qaadan jiray abwaanadeedii hore Axmed Saleebaan Biddo oo kale wuxuu soo qaadan jiray abwaanadeennii hore Sangub oo kale wuxuu soo qaadan jiray Hadraawo oo kale ayuu kaga hadli jiray farshaxanimadooda iyo sida erayada u dhigdhigayaan si ay jiilka dambena uga daydaan oo adigoo Axmed oo dhalinyarada soo kacaya uga dayataan laakiin mar hadduu dee barnaamijkii ka baxay israaca Soomaalidu intaas soo ahaay cabdigood ma wanaagsana taasi anigu waxaan oran lahaa tala ahaan ka maxamed ahaan inuu cabdigood halkii hore uu hawsha ka waday uu ku noqdo oo cabdigood halkii hore uu abwaanadii hore hogatuskii uu hore uu abwaanada u hayay uu hayo uu ka baxo arrimahan insha allah ilaahay ha ku hanuuniyo imika faqaad wayaa wuxuu ku xusoonin cabdigood warin odaya warin weyn warin mas'uula inuu dawlad waxa ka hadla ama waxa soo dayo dinaga ma fiican عاد في صبر دعوة وفي عبد الكهضي إلى هذا كل شيء وحاي واحد يقدر قرن تعالى وحويك قضية وين وسودين
run ahaantii abwaan isagoo barnaamijkii gabagaba uu yahay laakiin hal mid un baan kugu daray hal su-aal ugu dambaysa maxaad cabdigood wax talo ah ama tusaale aad siin kartaa adigoo abwaan ah cabdigood maxaad ugu talin kartaa kusoo dhawow cabdigood waxaan leeyahay aabto wax walba in laga hadlo maaha wixii habboon ama wanaagsan in laga hadlo way fiican cabdigood barnaamijkan uu soo dayay ama uu tan kaga hadlayo way fiican tahay inuu ka hadlo inuu saa uga hadlo maaha waa inuu wixii oo sarbeebsan ama aanu soo dayin daawashahaan uu dadka afooga sheego uu yidhaahdo dabdabow waxaasan aragnay waxaas wax loo dulqaataaba wuxuuna leeyahay adiga arkayde waxaa isagoo laa ilaaha illa allah lahaya ii soo dayay isagiisii dembiga waa la qaba ka soo daayay ka duubay iyo ka fanaanka waxba dembiga weyniyey cabdigood laftigiisu dembiga weyniyey marka cabdigood uu wanaagsan yahay inuu waqti wax walba ka hadlo uu wanaajiyo iminka anagu heesaan samayno kuwaan qaadno hadduu ka hadlo laakiin haddii waxaa soo bandhigo dhaakiisii uma habboona inuu wixii oo qarsoon ama wixii oon dee aan fahansanayn inuu dadka u sheego uu yidhahdo dadku waxaasaa la arkay dadba ka warrama ana cabdigood waxaan koo talinayaa inuu dee iska daayo waxa uu wixii oo dee qarsoon uu soo daayo inuu soo daayo ayaa jecelayaa bismillaahi raxmaani raxiim barnaamijkii oo gabagaba ah oo saacadahan dambe meeliyuu noo baaqayay barnaamijka waxaan kusoo xidhanaynaa insha allahu intii xunna xumaanta ilaahay inuu ka naseeyo dadkana ilaahay wada wanaajiyo qulubtooda hanuuniyo waxaan leenahay cabdigoodo taladaada iyo waanadaada noqo kii wax ku qaatay uu abwaankaasi yaree gobolka sanaa kasoo jeeda uu kugu waaniyey insha allahu safwaan took iyo laftigiisu si wanaagsan buu uga hadlay isagana waanu hambalyeynaynaa wassalaamu calaykum